kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa goobjoog TV ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan halkan kula yeelanayno musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero oo kamid ah musharaxiinta sanadkan u tartamaya xilka madaxtinimada ee wadanka Soomaaliya. Abshir Aadan oo muddo dheer ka soo shaqeynayay howlaha dawladnimada siyaabo kala duwan oo lug lahaa sidoo kalena kamid ah dadka waaye aragga ah ee wax badan kala socda xaaladda dalka Soomaaliya ayaan wax ka weydiin doonaa guud ahaan siyaasadda dalka noloshiisa gaarka ah waxa uu ku soo kordhin karo qarankan haddii uu kursiga ugu sareeyo uu helo iyo arrimo kale oo muhiim ah oo su'aalooda halkan ay noogu qoran yihiin. Abshir Aadan oo ku faraxsanahay inaan kula kulmo waraysigaana ka qaado mudan madaxweyne soo dhawow. Waa mahadsantahay. Marka ugu horeysa dadkana daawanaya waxa laga yaabaa inay is weydiinayaan Abshir Aadan Feero waa kuma bal Abshir Aadan si kooban ugu sharax waa qofkee nin dhalinyaro Soomaaliya ubadkii Soomaaliya aqoon-yahankii wadankan iyo maandheerihii wadanka. Abshir halka uu ku dhashay halka wax ku bartay waxaan ku dhashay 1968 Villa Iberia waa beri marka ciyaal waa beri aan ahaa waa gartay aqoonteedii sanadkayga ilaa 12 sano da'deeda halkan aan ku qaatay Soomaaliya kabacdi waxaan aaday Faransa oo xilliga burburkii may aan 80kii marka badanaa dadka dhan waxay yiraahdaan Abshir diaspora ma tahay marka waxaan ku leeyahay diaspora mi qurbo joogtaan ahay waa gartay marka wadanka institution leh oo dhaqaalihii bangiyadii sharciga shaqeynayo ayaan ka baxay isla iga waday caruur yar baan ahaa waxaan galay wadan institutionkii dhaqaalihiisa iyo economigiisa securitygiisa ugu shaqeeyay marka anaga qurbo joogtaan iraanaa diaspora ma iga lahaa qurbo joogta waa gartay Abshir heerka waxbarashadaada iyo qaybaha ay soo martay waxbarashadeeda book baan qoray oo maanta noqday history ka mid noqday caalamka aan uga sheekeynayo geopolitics-ga siyaasadayda waxbarashadeeda aqoonteedii meeshan ku najaxay iyo meeshan ku qaldamay qaladaadkayga marka boogan uu ku hor yaalaa maanta oo maanta wuxuu noqday booyada ugu qiimo badnaa caalamka buugga dad badan hadda daawanaya inaysan fursad u helin akhriskeeda laga yaabaa si kooban inaad u sheegto meelaha aad wax ku soo baratay jaamacadaha aad soo dhamaysay waxa aad sida gaarka ugu takhasustay aniga markay ugu horeysay da'dii 18 sano horta iskoolaadkayga waxaan ku dhamaystay Faransiiska 86kii baan ku soo noqday 86dii Soomaaliya waxaan 2 sano halkan joogay oo si dhaqankii iyo hidiyan ugu soo noqdo nidaamka aan caruur wadanka ka baxay ayaan dib ugu soo noqday waxaan ku qalin jibiyay dugsiga sare halkan ka bacdi ciidamadeedan aaday Faransiiska oo tababarkaygii militariga iyo ciidamadaydii ayaan xagga ka bilaabay ka bacdina jaamacadahaygii ayaan ka qabtay oo part of Erasmus waxaan iraahno international relationship Erasmus caalamiga dabadeedna shirkadeeda ayaan furay 20 sano ka hor alxamdulillah maanta waxaa ka shaqeysay 1800 qofood ingiriiskan ku noolahay waa gartay wadanka ingiriiska ku nooshaa aaba Soomaalida dabcan tahay awlaad iyo caruur baa ku joogtay dabcan ma sha Allah Abshir marka la fiiriyo sidaad sheegtay waxa tahay nin qurbo jooga oo dadka dibadaha muddada soo jooga ah wadanka Soomaaliya markaad xaaladiisa fiiriso waqtigan is leedahay fursad waad leedahay aad musharaxnimo iyo tartan madaxweyne u gasho su'aashaas run ahaantii laba waxaan ka tusayaa meesha maanta dhalinyarada qurbo joogtada ah diaspora wadankan waxay soo gashaan 1.4 billion sanadkii dhaqaalaha maanta waxaan iraahdaa dadka dhaqaalaha ugu badan wadanka Kenya investorada ugu weyn diaspora waa aqoonteeni weeyaan marka dhalinyaro badan oo maanta wadanka dibadiisa ku nool waxaan ka rajeynayaa inay noqon doonaan sideedoo kale dhalinyarada rasmiga ah oo maratay dhaqaatiirtii economistyaashii si wadankan u dhisan lahayn marka faa'iido ku jirto maanta maandheerihii ayaan ka mid nahay sababtan u soo noqday wadanku ku soo noqday taas ka mid ah
rajo ma leedahay weeyaan su-aashaada kale aan lagu guulaysto ha sidee waxaan fiirsanayn 30 sano haye waxaan aragnay rag badan oo isku soo taagay waxaan aragnay rag badan oo laandheere isku sheegeen marka maandheerihii baa ka maqnaa marka maandheerihii baa soo istaagay maanta marka maandheerihii maadaama aad tahay fursada haysataa saas aaminsan tahay anakoo dhan waxaad qortay buuggan hadda dabcan dad badan ay arkayaan oo ka mid a sidaan taariikhda ku hayo bugaagta ugu qiimaha badnaa qofi qoro bal si kooban buuggan oo noloshaada ka hadlaya iyo si guud maxay tahay maxaad u qortay buuggan muxuuse sameeyey oo record buuggan recordku waxeeyey waxaa noqday qofkii ugu horeeyey aniga lamihii Amazon ayaad waxaysay oo ii timid oo baartay iska soo baartay iguna yimaadeen yiraahdeen intaasoo sanooyin ayaan baarnay isriga Soomaaliya qofkii ugu horeeyay geopolitical book qoro manifesto iyo noloshiisa una soo istaagay siyaasadan ayaad ka mid tahay xafiiskan madaxweynimada midda kale waxaan qofkii ugu horeeyay Horn of Africa geeska Afrika iyo whole Africa oo dhan iyo qofkii afraad dunida yaa ka horeeyay waxaa iga horeeyay Obama madaxweynihii hore Mareykanka oo qoray The Life of My Father waxaa iga horeeyay madaxweynihii Macron Faransiiska qofkii saddexaadna waa wiilkiina Soomaaliga ما شاء الله أبشر أبشر هذا فيرو قف كي أفرادنا نيلسون مانديلا وهم روحي لي كده وقرأ وقرت التاريخ لاس علوس أياد ضدك الصوماليات أسوه يدي فهمتي وشرف أنا قلت أن فرحت قلنا ليس يكرام إنه هيس بوجن وحيابها قرتي ويفربديه وحادي قصو تشيدتي وكم إذا خيبت كم بنيدا أطفرتي وشقوين بدن قبتي ودولة إنجليزكا أي كوجدون سيسي جائزة maxay tahay waxaad ku mutaysatay wax iyo shaqada aad qabatay dadaan hay dadaal iyo maandeernimadeeni waa gartay maxay tahay wax sida gaarka ah oo aad u qabatay kartida weeyaan zoonahaas wuxuu ahaa dhinac aad iyo aad securityooda u adkeed amniga xagga arrintaas ayay maantay too aan gacanta kula galay qandaraas ah aan badbaadiyay noloshii dadkii kale zoonahaasna aan baashka 189 laga hadlayana waa dhul dhan oo shabeelahoo kale ah marka aniga takhasuskayga security waay economistana waan ahay maanta ilaahayna wuxuu isiiyey maanta himadii aan wax ku beeri lahaa oo shaqadaas noocaas kale aad wadanka u qabanay hadayt maraan sheekaysaneen waxaad ii sheegtay in wadankan siyaasadiisa aadan ku cusbayn واساس وأنت كسر شقيس محيين شقوين كأنت سوق قبته وودن كان أنت كسر قبته شقوين بدنا سوق قبته وودن كان مي وحنا هنيجي كليه ده قداش يسكت شرو أنا قريبا كوسع معنا بدنا هذا الدار تقف كنفط إنا بدبالي سيد أو بيها وكوها فنا يكسر ساتد وإنا دبال تقانا سفين أنت دباش برنا يي ضل كي دت كي ده قداش يسكت شري من ما أنت دان أنا أركب ملنا هوري إنه السعوديين دي إنه السعود موجيه هذا ugu soo istaagay xilkaas rag badan oo madaxweynayaal la soo shaqeysay dabcan sida buuga ku xusan xasan sheekh maxamuud sheekh shariif xilliga cabdullaahi yuusuf oo aad madaxweynihii iyo ra'iisul wasaare waqtigaas jira la soo shaqeysay galmudug laftigeeda waa la soo shaqeysay caalin competition ama xigasho yar wuxuu ku leeyahay galmudug xilliga uu joogay laba madaxweyne leedahay waasaas mid waa aniga idin muuqda midna waa madaxweynaha qarsoon oo adiga kula jeed maxay tahay waxaad ku mutaysatay daacadnimo hay eray baan ku isticmaalaa badanaaba waxaan idhahnaa oo aniga qaas ahaan ku idhahdaa isweydii waxaad wadankaaga u qaban kartid yaa isweydiin wuxuu wadankaaga ku qaban karo waa gartay marka wadankeena haddaan wax u soo istaagno oo dhaqaalaheena u soo istaagno oo maanta to waxbarashadeena u soo istaagno oo caafimaadkeena u soo istaagno caalamkan ka mid noqonaynaa marka aniga badan waxay ahayd maxaan wadankaygu u qaban karaa taas weyn waxaan ku muuqdo waa gartay waxaad og tahay wadankan hadda waxaa wax lagu qaybsadaa nidaam qabali ah oo 4.5 loo yaqaano marka ilaa intee la-eg ayaad fahansan tahay qaabka dadka soomaalida wax u qaybsadaan sababtan ugu soo istaagay ka mid tahay soomaali qabiil ma jiro
qabiilka ugu weyn waa dollarka. waa garta maanta adiga qabiilka ka dhalatay laga yaabaa inaad faa'iido ku haynin. ma fahantay dhalinyaradan iyo futurekan iyo mustaqbalkan qabiilka lagu sheegay haddaad xuduudka Ethiopia dhaaftid mase xuduudkan Kenya haddaad dhaaftid oo tiraahdo Landheeraan ahay oo lagugu qoslayaa. ma fahantay marka kuma noolaan karno kuma socon karno qabiil aduu wax tarayo 30 sano soo aragnay. marka maanta waa inaan isku nimaadnaa miiskeeni, waa inaan soo saarnaa aqoon-yahankeeni, waa inaan soo saarnaa maandheeraheeni, waa inaan danteena u soo jeesanaa. waa gartay haddii aad rabbi kuu sahlo aad ku guulaysato xilka ugu sarreeya waddanka, ahmiyadda ama prioritiska ugu horeysa arrimaha aad siinayso maxay yihiin? asaaska waa meesha keliya lagu qaldamay. madaxweyne kasta oo yimaado systemkaan naqaano wada dhaqameedka xildhibaanku soo saartaa, xildhibaanka madaxweynuu doortaa, madaxweynaha wasiirkiisu prime-minister soo saartaa, prime-minister wasiiradu soo saartaa. systemkan oo dhan uu shaqeynayo wada dhaqameedkii nolosha ah markii dantooda laga gaaro waa la tuuraa. waa garta qof maantayta waddankan hoggaanka usoo istaagay oo maantayta isku keena dhaqamyada masoo dhaqameedkeena maantayta waddanka gacanta noogu hayo oo maantayta ka qaatay tusaaladii ugu muhiimsaneed inay miiska la soo fadhiistaan ma jirto. anigu hadda maanta hadduu ilaahay calafkan noo qabto waxay tahay keliya hal wax. councilkayga masala taliyaashiisa ugu muhiimsan oday dhaqameedka weeyaan. mushaaradooda ana u hayo dhaqaalahooda maanta ka bacdi wixii ka dambeeya xuquuqda waddanka ay wax ku yeelanayaan. waa garta maanta madaxweyne oo keligiis socdo ma isku keeni kara Soomaaliya. si fiican waxaan iga soo qaadayaa imaaraadka for example Sheekh Zayni bihaya Sheekh Zayni toddobadan mandaqo oo imaaraadka wuxuu iskugu keenay keliya oday dhaqameedkii inuu isku keeno. ingiriiska markii maare loo waayay Scottishkii iyo Irishkii iyo Welshkii boqorada go-aan waxay ku gaartay cabinetkada inay ka dhigato oday dhaqameedkooda. marka oday dhaqameedka waa futurekii nolosheeni. aniga budgetkoodan u diyaariyey oday dhaqameed kasto wuxuu noqonayaa furihii ugu muhiimsanaa la taliyaasheeni. degmad kastay ka soo jeedaan allow may noqdaan 2,000 oo qof. asaaskii waddanka ayayna la dhisayaan. laakiin waa shaqo culus lama qaban karo Soomaaliya markaa fiirso. shaqo culus oo dhaqaalahaas intaas la eg iyo dawladdii iyo qabaa'ilka wax la qaban kara maaha soo kulama ah. say loo qaban waayo dhaqaalaha marka aad ka hadashid waddankan dhaqaalaha soo gala 30 milyan iyo 100 milyan iyo 300 milyan iyo waxay tahay ma laha dhaqaale ka badan oo waddankan haysanaa. ka soo qaad maanta ito hal wax ka ugu muhiimsan tourism maanta ito dalxiiska tourism maanta ito wuxuu ku fadhiyaa lacag trillions ah oo dollars. marka Soomaaliya anagana waa inaan muraad isku fiirinaa. haddaan rabna caalamka adiga ka soo qaad maanta noloshaada ma tegileed waa beri guri ma ka gadan lahayd haddaan ammaankaaga aynu ku sugnayn masakii reerkaaga ma ka gadanaysid dhaqaalahaaga ma gelinaysid dhaqaalahaaga. marka anaga waa inaan soo saarnaa soona celinaa quraxdiina lagu yaqaanay Soomaalinimadeena. maanta airportkana ka soo degaysaa airportka ma ka soo bixi kartid qof ajnabi haddaad tahay haddaad ka fiila haysan oo qofku maanta xilkaaga qaado. marka waa anaga inaan isfiirinaa baddeenan quraxda badan khayraadkeena quraxda badan waa inaan isku noqonaa meesha dhaqaalaha rasmi dunida dhaqaale la'aan lama joogo dhaqaale badan dunida taasho. anaga waa inaan keenaa marka ugu horeyso aaminkeeni caalamka san ugu soo noqon lahayn nolosheena caadiga ah. waa gartay abshir waa mahadsan tahay. inta badan musharaxiinta dalka jaalkaaga ama saaxiibadaada ah xulafo ayay samaystaan qaarkood waa wada socdaan. adiga keligaa ayaa taa sida muuqanaysa. ma jirtaa musharaxiin kale oo xulafo aada la tahay oo isbahays siyaasadeed oo aada leedahay? run ahaantii markaan ku dhahayo maantayto aniga waxaan u taaganahay maandheer. maandheerka waan arki doona qofkii la noqon doono oo isbahaysigaas maandheernimadaas soo geli doona. exactly waa gartay maxaan cani futureka waddanka waa inaan ka fikirnaa. arrintan kaaga soo qoday oday qabiileedkeena markuu councilka noo noqdo dhallinyaradeena budget waxaan u hayaa cunuga 18 sano ilaa 30 sano inuu ku soo noqdo tababarka ciidamada gurmadka. maahan askari noqon waxay aqoontii meesha uu ka qaadan lahaa. caruur badan oo af Soomaaliga qorin baa jirto. dhalinyaro badan markay af Soomaaliga ugu la hadlayaan isweydiinaysa oo ka soo barteen luqadda.
gurmadka waxay ii keenaysaa ubadka mase dhalinyarada maanta ito 4 sano aan joogno waa ina 4 barnaamijkii gurmad qaran oo dawladda isticmaalaysa dawladda dhexe in rabtaa inay soo celiso no saaribta u qaadame mid kale aan kugu sheegay haye waxaan soo celinaynaa midda ugu horeyso ubadka waa inuu yeeshaa aqoontiisii si fiican aan soo galay si banooniga oo kale weeyaan adaarta laacibka ugu fiican inaan soo gadatay waa inaan kharash ka bixisaa waa inaan kharash ka bixisaa fahamtay aniga diyaaran u ahay maandheer inaan soo gato waa gartay waa fahamtay Soomaaliya marka dad fiican in la soo saaro oo la tayeeyo ubadkii wuxuu galayaa tababarkiisa ciidamada 300 200 ilaa 300 dollar mushaarad uu helayaa income uu helayaa shaqana abuurnay aan abuuray muhiimka kale ugu saamisanna waxaan ubadkaas wuxuu baranay subaxda markuu soo kaco sariirtiisa inuu ku gasho dharkiisa nadiifsado tababarkiisa aado trainingkiisi quraacdo xisooyin kala aado xisooyinka aduu rabo inuu noqdo darawal aduu rabo inuu noqdo mechanic magaalada aduu rabo inuu noqdo engineer aduu rabo inuu noqdo doctor medicine iyo dhibaatadan ka taagan shahaadooyinkeeni jaamacadaha oo la aqoonsanayn caalamka marka afartaas generation dhalinyaradaas maanta soo baxaana shaqadoodii diyaar weeyaan iyo civil servant shaqada rayidka dawladda mid hadda ku aragno wadankan shaqada dawladda rayidka way yimaadaan madaxweynaha baxay wasiiraha baxay bur wada baxayaan wariyaha shaqadii haay hal bacaad lagu lisay noqotay marka muhiimka uga baahannahay wadankan waxa weeyaan saan ammaankan u soo celin lahayn hadday noqoto allo xataa al-shabaabna inaan la hadlo diyaar baan u ahay arrinta ammaanka dagaalka ugu weyn oo ay wajahayso dawladda Soomaaliya wuxuu ka imaanayaa xarakada al-shabaab sidee ula macaamilaya al-shabaab haddii aad kursiga horta asweydiino qodobka ugu muhiimsan al-shabaab ma Soomaali ba ma Soomaali ma waa su'aasha ugu muhiimsan al-shabaab si ugu nool yihiin wadanka hadday ubadkii Soomaali yihiin maanta ito isku diinaan haysanaa kitaabkaas maana wax kale maanta kuma isticmaal kitaab kale ma jiro dunida caalamka oo dhan kitaabkaas ku isticmaasha amaan isku helaan kuwada nool yihiin al-shabaab abaabkii ugu furan yahay wada hadalkayga diyaar aan ahay wanaag baan wax ku bilaabaa hadaysan wada hadal ogolaan aan ku dhameystiro wanaag baan wax ku bilaabaa wanaag baan wax ku dhameeyaa inta u dhaxaysan waan ka shaqaystaa marka ma oran kartiin haddii aynu wada ogoleen hadal maanta haddaan rabno Soomaaliya inaan isku keenno sida wada dhaqameedka maskaxa ra'yigan aan siinayo dhaqameedka waxa weeyaan inaan diyaar u nahay ubadkana inaan dhageysano waayeelkana inaan dhageysano dumarkana inaan dhageysano xuquuqda qofka saan ilaalino maanta ito haddii isku keenin xuquuqda bini'aadanimada wada noloshadeen way adkaanaysaa marka policygayga iyo objectivekayga dhalinyaradeed waxaan codsanayaa diaspora inay wadan ku soo noqdaan hadday noqoto maanta al-shabaab inaan la fadhiisanana anagii oda dhaqameedkayga miiskan u fadhiyaa marka la rabo in dhibaato meel ka jirta la daweeyo ama wax laga qabto waxaa la fiiriyaa wax meesha ka jira iyo sida ay 8 sano dawlad rasmi ah ayaan hadda ku jirnaa oo madaxweynayaal rasmi ah ayaa wadanka la dooranaya ku meel gaar ahayn 8 sano marka aad fiirisay dagaalka al-shabaab heerka uu marayo wali lagama adkaan maxay isleedahay lagu guul dareysanayaa oo shaqadaas intaas la eg oo al-shabaab in la dagaalo oo dalka laga saaro waa loo qabalaya al-shabaab maantayto maxaa looga adkaalaya waxaa looga adkaan la yahay al-shabaab ragii la tartami lahaa garoonka ma joogaan si fiican ma garatay marka laacibkooda wali ka maqlaa meesha oo dawladda dhexgeeda joogin ay ka jirta saarta ugu tujubo afar si fiican ku fahmay hadda waxaa dhammaaday sidaad xal la socoto madaxweynaha sharciga ee madaxweynaha talada jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walina dalkii heshiis doorasho ama wax heshiis lagu yahay in doorasho dhacdo ma jirto sidee arintaas aragtidaada ay kula muuqataa saygula muuqato waa si anagoo dhan oon wada jeedno anagoon indhaha iska tirin madaxweynaheena sharci oo 4 sano uu ku shaqayn lahaa dastuur baan dastuurkaasna uu ku shaqeeyahay maanta inta wadankan odagii wadankaasiga u ahaa hogaamiyihii wadanku ahaa
ma fududo shaqadu qabanaya ma fududo runtaan isku sheegno ma garatay maxaa dhaqaale daro dhalinyaro badan oo maanta aqoon haysan oo agaarihiisa joogo wuxuu awoodi kara wuu awoodo wuu qabtay 8 sano ka soo hadashay madaxweynayaasha run ahaantii waxay qaban kareen way qabteen wadanka maanta horumar weyn ayaan gaarnay haddii noo fiiriyo 20 sano 30 sano ka hor marka rajada way fiican tahay maanta itaaniga adiga waxaan wada fadhinaa xamar quraxdaas naga muuqato doorasho inay dhacayso rajayn ma ku kalsoontaa ma ku muuqataa in doorasho wadanka ka dhacayso program September bishii 30keeda idaacadaha dhan waa ka raadsan kartiin oo 1460 maalmood ayaan soo saaray solution and see international community ma garatay ay aad u qaateen loona yaabo jidkaas in lagu soo noqonayo solution kala miiska yaalo waxa igu muuqataa tay ra'yiga kale inay tahay marka madaxweynaha run ahaantii xiligiisa wuu tagay solutionkaas muxuu ahaa aad internationalka iyo adduunyada dhan aad la wadaagtay 400 wuxuu dhigayay baarlamaankan aan ugu darno 2 sano wuxuu dhigayay si degdegna alow 3 bilood mise 6 bilood ha noqoto aan ku dooranno 7 qofood madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeenadiisa iyo aqalka hoose iyo ku-xigeenadooda 7daas qofood waa 6 golaha labada baarlamaanka iyo madaxweynaha 7daas qofood inuu door si loo kala saaro shaqadii xildhibaaniintaana maanta ka bacda corruption qaadi bilaan ka taaganahay ee musuqmaasuq 2 sano ugu dara faantay 2 sano kadib doorasho ayadoo madaxweyne wadanka jooga doorashaha la aado ka bacdina waxaa ka soo baxaysa meeshaas wax nadiif ah conditionka meeshaas looga baahan yahay waa xawiyaan 2 sano inay ku soo diyaariyaan qof iyo doorasho qof iyo cod oo xildhibaanada baarlamaanka 12aad imaanaya ay ku imaadaan dadweyne ay soo doorteen perfect waa talo fiican kulliba hadii la qaadanayo abshir aadan feero musharax madaxweynaha tahay nin qurba joogana waa tahay wadanka hadda marka aad fiiriso 3 position ee ugu sareysa waxa haysta dadka qurbaha ka yimid madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka baasaboorro ajaanib haysta ma aaminsantaa in mar kale iyadoo 4 sano soo dhaafay dadka qurbaha ka yimid fursad la siiyay 4 sano oo kale fursad waa la sii karaa dad qurba jooga wadanka xukumi kara runtaan ku sheeg iska ilmaama ereygan inagoo dhan maskaxdiina iska geliseen qurba joogti Soomaali waay aqoonyahan waa aqoonyahan ma fahantay marka yaa maamulkii hogaankii wadanka wadi karo iyo su'aashii la isweydiiyay ay tahay shacabka Soomaaliya maanta ito qalad kuma jiraan maxaan waxma dooran ayagu doorashada waxma dooran waa si fiican niman xildhibaano wax doortay waan qanaan si wax ku doorteenna wax ku doorteen waa lacag ma fahantay marka taas weeyaan maanta ito mid ugu horeysa adaan iska ilaa musuqmaasuq waxbuu baabi'iyaa musuqmaasuq wax ma dhiso marka anagina jirtaa go'aankaas inaan gaarno marka dhalinyarada ka imaanaysa diasporada maska ka imaanaya localka of course wadanka Soomaaliya oo dhan wuxuu ku shaqeeyaa wadda Soomaaliya dhalinyarada masaakiinta shaqo la'aanta dadkan ordayaan laga yaabaa xildhibaankii mise dawladeen inkastay lacag ay raadinayeen inay hilmaameen dantii Soomaaliya marka anaga oo Soomaaliya oo dhan wada victim ah inaan codan wax ku doorano ma haysan midaan raba inaan bedelo taas weeyaan midaan ugu soo kacay midaan dibadda uga soo baxay nin daha gadaashiis ku jiraan ahay waa gartaa abshir marka adigu tagto waxaas waa bedelay sidaad rabto insha Allah laakiin hadda inta aad meesha u socoto ay caqabadi jirtaa doorashada Soomaaliya sida raay caamka dhan ku jirta qofka madaxweyne loo dooranayo waa inuu wataa boorsadiisa oo dhaqaale xoog leh u baahan tahay oo waxa dadka ka qarsoomaa Soomaalida way aaminsan tahay ma tahay musharax jeebkiisu ku filan yahay inuu kursiga ku tago su-aashaasaan kaaga jawaabaya waxaan soo arkaynay 15 sano ugu dambeysay waxaan ka faa'iiday arrintan aan ku soo guuleystay caalamka Soomaaliya meeshii la oran jiray Soomaali waa tuugtii ugu weyn ee dunida ayaa maanta caalamka ugu soo guuleystay European Union ugu soo guuleystay inaan maxkamadii uga saarayay ka shirkadahoodii inay ayaga korruptan yihiin tuuga yihiin kiiskii la xiriiray
qoladii xalana deganeed dhaqaalahayga iyo raasmaalkayga ayaan gashay waddankayga maxaan u qabtay weeyaan qof aan Soomaali ay weydiista ma laha ma fahamtay marka musuqmaasuq waan ka soo horjeedaa maxaan caafimaad kuma jiro oo COVID-19 musuqmaasuqa marka anaka isweydiino miyaan doonaynaa inaan san ku sii socono weeyaan caalamka qof raba inuu dhaqaalihiisa noo liimaado ma jirto waana laga wada cararay dibadana laga istaagay it's time to change waqti waa inaan bedelna hadda oo musuqmaasuq dawladdan islaada musuqmaasuq waxbay ka qabatay intii ay joogeen ininku waan ka jawaabay shicibkeenii weeyaan waa gartay ugu dambeyntii dalku wuxuu ku jiraa marxalad kala guur ah madaxweynaha waqtigiisa waa dhamaaday buuq fara badan ku furan magaalada waa joogtay labadan bari iyo maalmihii u dambeeyay xaalkana waa la socotaa nin waaqici ayaa tahay maxay tahay fariintaada ku aadan doorashada guud oo aad u dirayso ummadda Soomaaliyeed iyo dadka kacsan ee walwalka qaba okay horta aad u fiirisiin sharciga baarlamaanka ama dastuurka waxa weeyaan inuu baarlamaanka sii joogo gudoomiyaha baarlamaankana oo sii qabta xilkan intaan ka soo dooranay madaxweynahana dadku waxay yiraahdaan bishii 8 ayaa ugu dambeysay dad baa xalay dabaaldegay dhahayeen marka xalay aniga bishii 7 soo galisay caawa weeyaan tayda ma fahamtay waqti ku dhamaana ma fahamtay marka madaxweynaha uu ku maadsan yahay hadduu waddankiisa rajo ka qabo shicibkiisa uu jecel yahay dadkiisa uu jecel yahay iskaga taga meesha inuu isku ceebeen ma garad waqtigiisa wuu dhamaaday inaan niraahdo mahadsan tahay cimri tagana ceeb laguma sagootiyo ma fahamtay marka hadduu caawi wixii ka damay midna sii joogo waddankan kursigan ku joogo weli Soomaaliya sii fadhiyo kuuday taa weeyaan afgamis weeyaan caawi midnight marka dad badan ayaa yiraahdo dastuurkii ama sharciga soo baxay October ku jira meesha kama hadlaayo madaxweynihii waddanka madaxweyne maanta waddanka dastuurka iyo qodobada aad fiirisiin waa dibaddu ka taagan yahay waa gartay marka Soomaaliya waqtigu soo hayay waan ku mahadnaqnay shaqadiisu qabtay intii awoodiisu qabtay marka raggii culusaa soo socday booska noo banay waa gartay fariinta dadka walwalka dareemayo isdhahayo wadankii dhibaata ka dhacay dagaal ka dhacay dadkii walwalay dareemayaan maxay tahay fariinta u dirayso shacabka Soomaaliyeed horta shacabka Soomaaliyeed dadka ugu qurux badan dunida weyn caalamka oo dhan soo maray dadkaygana waa dadan aad iyo aad uga helo zaciinimadooda quraxdooda wanaagooda iyo wada noolaashadooda maanta hadaan maqaayad tagtid qof aad u qoon u baahan waxa lagu leeyahay kaalna la soo fadhiisana la qoon meel caalamka taas laga helo malaha shicibka waxaan leenahay waan soo aragnay dhibaato 30 sano ah dagaal waan soo aragnay geeri waan soo duugnay dhibaato ka badan sugayso shaqo badan sugayaan hawal walina wuu baxaya sharciga soo dhigayo abshir aadan waxaan maqalnay in aad guul ka keentay kiis la xiriira shuruuc ay qoladan European Unionka ee Soomaaliya jooga ay soo saareen oo ay ku leeyihiin qof isirka Soomaaliya ama qof Soomaali ah kama shaqeyn karo xarumaheena Soomaaliya bal arrinkaas noogu waran sidee wax u dhaceen waa arrin aad iyo aad naxdin badan u leh ana la maqlin mismaarkii ka hor waa sababta ugu qasabtay inaan u istaago waddankaygii iyo dadkaygii maxaan aanay maanta intuu markaan arkay qodobkaas aadan la yaabay corruption xoog la meesha ku jirtay go'aanna markaas waxaan ku gaaray inaan maanta intuu aan u istaago xuquuqdeena Soomaalida aan ku maanta intuu adin waddankiina awood lahayn waa goorma markaas u istaagay 2015 bay ahayd waa gartay dalsoor ayay ku jirtay oo waliba waraysiyaad bixis Jamaal ayaa ka hadla aniga daha gadaashiisan ku jiray maxana maxkamadihii iyo dacwooyinkii wixii dhan baa socday waa gartay sababtana maanta intuu waxay ahayd qof dhan aan dhulkeena siinay
oo shaqo abuur in waddanka laga waxay ahayd inuu daqiiqada ugu yimaado markuu yidhaahdo meeshka marka dhismaha dhammaato waa inaynan soo gelin qof Soomaali ama isikii Soomaali ah qaladka ugu weyn ay ka mid tahay marka micnaha waa maxay booyso nadiifiye maanta intuu cunug xataa ka shaqeynayo technology information administration ma soo geli kara weeyaan marka European Union marka badanaa waxay lacag badan ayaan gelinay Soomaaliya waa waxyaabaha aniga aan ka daba tagay marka go'aankayga aan gaaray ani keligay iyo dhaqaalahaygii iyo economigaygi ayaan galshay san ugu istaagay xuquuqda dadkayga markaan dhahayo mas'uuliyadda ka soo jeedaa ma garatay taas baa kamid ah ninkii waxaan noqday wadankii lahaa Soomaaliya waa wadankii kii ugu musuqmaasuq badnaa dunida ayaa maanta wuxuu ku haysaa European Union iyo shaqaalahoodii tuuganimadoodii waa fahan Soomaali marka nimankan xalan ii fadhi waan ka shaqaysan doonaa dhibaato ma laha isku luqadna nahay isku dhaqan baan nahay isku aragti baan nahay Soomaalina waan ka dhashay dibadana waan ku dhashay oon ku shaqaystay marka aqoonta maanta ana la soo bixi doono waana wataa waana gacanta ku hayaa waan la xisaabtamayaa hadda for example aan ka soo qaado haddaan documentigana gacanta ku hayo information dadka canshuurta European-ka bixiyaan xuquuqdayna tahay waxay ku leeyihiin 2012 ilaa 12 ilaa 17 Soomaaliya waxaan gelinay 49 milyan markaas waxay ku leeyihiin waxaan ka shaqeynay biyaha iyo energy-ga I'm sorry mu ujeeda taas ma ujeeda waan balaahay magaalada markaan baaro ayaga markaan la joogo waxaan Soomaaliya gelinay Soomaaliya markaan imaadaan kora dhulkay geliseen ii sheega markaas yiraan halkaas meeshana markaan tago waxba kuma yaalo ma fahamtay marka ma fi Nairobi ga sheegan jirteen waa raggan ka daba tagay ma fahamtay marka ugu horeysay Soomaalida waxay ahayd kaliya dhibaatada ugu weyn hadalka joojiya shaqo iyo isla xisaabtan iyo wax qoran waa kaasa marka dacwadan case-kan labaad case-ka koowaad oo ku guuleysanay oo idaacado dhan ay ku jirtaa caalamkana aad bay ugu mahadnaqeen kartadii rajadii Soomaalida loo qabay aan kor ugu soo qaaday buugan aan qoray ma ahan nin musuqmaasuq la dagaaltamay anahay maxan musuqmaasuq dadkayga ku baaba'ay maxkamadda sidee u dhacday 4 sano iyo bar oo shaqo badan ay ku dhacday dhaqaale badan iga baxay maalkayga aan ku yiri waxaan ku bixiyay 1.5 milyan euro ayaa jeebkayga ka baxday ma garatay sababteedana waxay ahayd waraabshiro dadkaaga u jeedaa si u baabacsan yihiin nimankan meesha ku socdo adigana waa ka mid tahay dhaqaalahoodii 1800 qofood oo ku shaqeysaa cashuurtuna waad ka bixisaa dadkaagana ma gaaraan yaa waa meesha lacagta ka baxday marka waxaan furo wax la yiraahdo wada xisaabtan waxaan ku isticmaalay koofideedii European-ka ana yiri cashuur baan bixiyay lacagteeda wadankaas ay gelisay halkee ka baxday lacagteedii markii loo eego waan naqaanaa diyaaradahan qarashkan administrationkan logistican lacagahan ku baxayso waa lacaga ugu xun hadda ka soo qaad mid ugu qoreen waxay yiraahdeen support to the civil society support waxay ugu qoreen 12 ilaa 18 54 milyan oo euro education intaan kaliya ayaa waxay tahay 490 milyan oo waliba aan ku haysto qofkii batchkii oo loogu amray lacagta inay bixiyaan descriptionkii meeshay ka shaqayn lahaayeen sababta loogu talagalay sanadkii dhaqaalihii iyo qofkii gacanta dhaqaalaha ku hayay marka su'aashaan leeyahay dawladeenan aad u fiican yihiin way mahadsan yihiin su'aashaan weydiinaya madaxweynayaashii hore aqoontaas ma leeyihiin maanta ay ugu soo saareen kuna difaacan wadankayga marka waa mahadsan tihiin dhinaciga leexda nolosheeda oo dhan waxay ku dhisan tahay 3 qodob diinta islaamkana ay ku qoran tahay diinteena quraanka ku jira war adaa aragtid qof laga gardaran yahay u istaago difaac adaad awoodi karin inaad difaacdidna ka fogow u qeyla dhaan adaad awoodi karin inaad qeyladid habeenkaas ku seexanin waxaad soo aragtay inay xaq ahayd wadankaygu waan u istaagay waan ka ceshay cadowgii dibadda iyo dadkii musuqmaasuq wadankayga ku waday oo anaga lagu eedeynayay oo nu istaago oo qeyl dhaamo idaacadaha caalamka waxaan ka hadlay kamid tahay habeenkii ma ka seexdo xanuunkayga hayo wadankayga shacibkayga dadkayga marka yaareed adaan heli lahaa maanta qof kale oo karti leh oo maanta fahmayo
oo maandheera ah booskaas anaa support gareen su madaxweyne igu noqon lahaa ma ii keena Soomaaliya ninkaas aad iyo aad umahadsan tahay excellency musharax madaxweyne abshir aadan feero waa kaaga mahad celinaynaa waraysigan gaarka aan siisay bahda goobjoogna waxay ku rajaynaysaa guul iyo kartidaada iyo adigoo wadankan wax ka noqday insha Allah fursadda iyo calafkuna waa halkeeda oo mahadsan tahay mar labaad ku mahad celinaynaa